kulan wacan oo wanaagsan giddigiinba. Halkani waa Samadoon Media. Haddii aad nagu cusub tahay, fadlan subscribe noo saar, gambaleelkana furo si ay barnaamijyadeena kuu soo gaaraan goor waliba iyo waqti waliba aan soo gelino. Commentiga iyo like share-kana hanaga ilaawin. Kan waa Mas'uud Mustafa Ozil, laacibka naadiga Arsenal iyo xulka qaranka Germany. Asal ahaan uu dhashay Turkiga laakiin qaatay dhalashada xulka qaranka Germany. Ozil soo shaac bixidiisa waxaa si caan ah loogu bartay shaashadaha caalamka oo ka soo dhex muuqday, laakiin Ozil waa mid la daalaa dhacay kursiga keedka, mararka qaarna xitaa lagu soo daro kuwa kursiga keedka la fadhiisiyo. Ozil waa mid dhibaato fara badan u maraya macallin Unai Emery, kaasoo ka doorbida xidigaha da'da yar ee Kundus iyo Willock, kuwaas aanan lahayn khibrad buuxda midda Mas'uud Ozil markii loo barbar dhigo. Ozil waa laacib waxyaabo fara badan ku soo muujiyay waayihiisii wacna Real Madrid, bilowgiisa quruxsanaaya Arsenal iyo xulkiisa qaranka Germany. Ozil waa ku guuleystay 2014 shaxnadii koobka adduunka ee lagu qabtay wadanka Brazil, kaas ay ka qaadeen xulka qaranka Argentina. Ozil ayaa kulankaas ka qayb ahay, asiga oo si weyn ugu soo dhex muuqday bilowgiisa Arsenal. Ozil waa ku guuleystay FA Cup, kaas oo kula guuleystay waxyaabo fara badan oo FA Cup ah. Ozil waa mid ugu muhiimsanay safka macallin Arsene Wenger, laakiin hadda Unai Emery waxba uma han Ozil. Waxaa laga yaabaa inuu January ka holeelo Ozil Arsenal